بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Mukhtaar. waxaan rabaa marka hore inaan idin mahadceliyo dhammaantiin sidii sharafta lahayd ee aad u aqbasheen martigelinta degdega ah ee lagu soo dhaweynayo walaalkeen Durraan Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo marka la soo gaabiyo goos loo yaqaan xog hayaha aniga oo hadalka soo gaabinaya maadaama ay tahay berri maalin shaqo hadal badan ahaan ma buuxsha la yiri barnaamijkeena waxaan ku furanaynaa aayadaha quraanka kariimka ah waxaan aayadaha quraanka noo furayaa walaalkeen Cabdinuur Faarax waxaan rabaa marka hore inaan ku soo dhaweeyo Cabdinuur ku soo dhawo Bismillahir Rahmanir Rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم مركله kulankeenu maanta waxa weeye inaan soo dhaweyno xogayaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed waa Durraan Faarax maadaama gobolka Minnesota jaaliyada degan guud ahaan aan nasiib u leenahay in dadka degan ee nala degan gobolka ay u badan yihiin dad badan oo maaragtay ka mid ah ciyaartooydii hore ee qaranka ama nooc kasta ay ahaato ciyaaraha fudud ciyaaraha kubadda koleyga ciyaaraha kubadda cagta nasiib wanaag ama bahda fanka inta guud ku jirtaba ama macallimiintiiba guud ahaan waxaan nasiib u yeelanay marka dadkaas qaar ka mid ah inay caawa ay kulanka nala joogaan nagala soo qayb galeen marka hore waxaan rabaa inaan u yeero oo ku soo dhaweeyo walaashay Fartuun Nuur oo ka mid ahayd ciyaartooydii xulka qaranka ciyaaraha fudud iyo kubadda koleyga marka walaashay Fartuun soo dhawo macallin Fartuun waxaan dhihi lahaa walaalkay Durraan Faarax waa markii iskugu horeysay aan is aragno aad ay mahadsantahay maadaama noogu timid Minnesota waxaan ku leenahay soo dhaw anaa ku hadlayo magaca gabdhaha marka waxaan dhihi lahaa welcome magaceygana waa taqaaneen uma baahnidin nasiib baritiin marka insha Allah soo dhaw sidaan idin sheegayba waxyaabaha Minnesota inta badan ay kaga duwan yihiin gobollo kale ama meelo badan waxa weeye inteena yar ama guud ahaan dadka sportska jecel ama ciyaara ama soo ciyaari jiray ama macallimiinta ka ahaa waxaan leenahay guddi dhisan oo noo maamula oo maaragtay waxaan nahay dad isku nidaamsan oo maaragtay xushmadii iyo sidii lagu yaqaanay sportska leh sibna waxaan u leenahay maanta inuu meeshan fadhiyo gudoomiyaha sportska gobolka Minnesota isagoo ku hadli doona codka jaaliyada Soomaaliyeed guud ahaan walaalkeen maaragtay Durraan soo dhaweyn doona kuna hadli doona codka bahda sportska gobolka Minnesota waa maaragtay Cabdi Cali Macallin soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan si qaalinimo ah qalbi furana ku soo dhaweynaynaa Durraan Faarax oo asaga iyo dad aad u kooban ay wadaan isboortiga Soomaaliya Durraan waa active ninkaad arkaysiin intaan ka soo arkay aniga gudaha يعني برنامجyada iyo dhaqdhaqaaqa isboortiga iyo yani waa ninka ugu horeeyo waaye marka waa in lagu ixtiraamaa qof waliba waxa uu qaban karo sidaas ay ku quman tahay in kastoon jeclaa inaan faro yani talooyin maaragtay talooyinkaasoo noqon kara Soomaaliya waxa ka socda kulligeen waa naqaan isaga sheekayn mayno waxa laga yaabaa markii ugu roonad inay tahay iyadoo sidaas ayay u jilbalaabteen inay isboortigi dhaqaajiyaan oo ay ka qayb galaan yani Afrika Carabta inay ka qayb galaan marka taladaydu iyadoo kooban waxa weeye
dadka cayaartooyda ah inaan loo hanqaltaagin kuwa dibadahan jooga waayo waxba ka tari maayaan markay tagaan meelaha qalafsan oo adag ha la tababaro dadka jooga xamar iyo gobollada kale ha la dhigo tartamo xulku meesha ha isugu yimaad waxay u baahan karaan markaa saaxiibaday macallimiin waa u baahan yihiin oo waa lagama maarmaan marka dibadda cayaartooy laga qaaday oo la geeyey lagu daray kooxihii kale wax badanaa ka maqnaan kara bal iswarsada cunuga halkan ku dhashay ee ku koray qaabkiisu waa sidee waddaniyadiisu waa sidee yacni yaanaan iloobin dadka gudaha aan wax barno dadkeenna dibadda jooga oo isboortiga jecel waxay ku qasban yihiin inay gacan siiyaan gudaha in lala qalqaaliyo macallimiin in la tago oo la dhiirigeliyo yacni intaas waa muhim waxtarna waa u noqonaysaa qolada madaxda isboortiga ah yacni ma malayn karaysid dal dhibkaa soo maray iyo hadda bal intuu haysto oo ama garoomada sida loo hagaajiyey kooxaha hadda ma yeelaysaan haddaan idin dhaho kooxo afrikaana oo sidii Kenya Uganda ciyaartooy ah ayaa ka ciyaara Soomaaliya oo kooxuhu ay soo kala gateen marka duraan waa mahadsan yahay hadduu ina soo gaaray duraan dadkaani dad kooban waaye dadka loo yeeray maaha dadka isboortiga oo dhan maaha dadkii howlkan ka badan ay buuxin karaan runtii laakiin waa dad special aad baa garan kartaa waad wada taqaanaa intooda badan marka soo dhowow aan ku leenahay mar labaad soo dhowow annagu haddaan nahay qolada isboortiga diyaar ayaan u nahay wixii aan kari karno oo awooddaynu noo saamaxayso ama tala ha noqoto ama tigaad ha noqoto intaba waa mahadsantihiin gudoomiyaha wuu mahadsan yahay waxaan rabaa sportska bahda sportska ama madaxdii ama jaaliyadda keligood ma joogaan waxaa nala jooga fankii iyo fanaaniintii Soomaaliyeed ama dadkii ugu waaweynaa waddankeena qaar ka mid ah nasiib waxaan u yeelanay Sharif Jeeg inuu nala joogo isaga ayaa soo dhaweynaya oo aan u dhiibayaa maaragtay xogayaha guud Duraan Faarax waxaa soo dhaweynaya Sharif Jeeg oo u dhiibaya hadda السلام عليكم walaalkayna ama wiilkayga oo yaray aad baan u soo dhaweynaa Duraan horta sportiga waxa way qabiil male wala socotiin baloonida hab loo ciyaaraa jira marka aniga waxaan ku soo dhaweynaa magaaladayna oo Minnesota Minneapolis qaar aan 5,000 waa gaarayna sportiga inta joogto naftirkeyga waxa waaye inkastoo oon dhinacaas aan u leexday laakiin yaraanteedii waxaan soo dheeli jiray ilaa lixdii oo isbartiiwadii xasuusitiin oo masriga keenayay waxaan u dheelay dhagax tuuraan u dheelay waa ka xumaay laakiin ma kisaysiin intaad igu aragteen xagga ma igu arkeen ma garatay marka Boston soo ciyaaray Scott iyo aniga iyo sheeqay waxaan ahaa jirnay squatter lidaaho Juventus Angelina waxa u dheelay Nuur Gaab iyo Xaaji Maco iyo waxaan ku dheeli jirnay ma arti meesha lidaaho suuq xoolaha waa soo halganay laakiin waxaan eri jijibiska ma ka bixi kartay inta la ulaaxaya marka waxaan aan ka codsanaa horta Soomaali waxay tiraa musuqmaasuq waa Soomaali meherdeed isboortina musuqmaasuq ma galo ninka ciyaartooyga ee oo firfircoon in si fiican wax loo baro la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay laakiin nin waxay dhawaan aad isku yimaad war wiilka igu dar waa socotiine aad isku la ka ogolaan hadda baa ku sheeg meesha igu dar ma soconaysa nin waxa la raaw bari meesha markii la tago inaan guusha soo qaadna loo baahan yahay magaca Soomaali in la weyneeyo maana in la yareeyo anaga ma jecelnay
dadka yareynayaan iska fiiri meeshaan bunubuniyaa jiraan bunubunigaas isku soo gelin welcome soo dhawaa walaalkayna waa kaas intaan kugu soo dhaweyna mar kale soo dhow ayaan ku leenahay mikrofoonkan adiga hadda iskale soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد runtii marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii soo dhaweyntan qaaliga ah oo qiimaha badan oo aan la malayn karin maxaa la yiraahdaa caawa halkan aad igu sameyseen runtii ayadoo waliba degdeg ah maantaan imid kulan baan u nimid Washington ka jiray marka waxaan anaa go'aansaday inaan imaado magaalada Minnesota oo asxaabta iyo qaraabo iyo ay joogaan inaan imaado marka run ahaantii waxaan marka hore waxaan salaan idinkaga wada gudoomiyaha Olombikada mudane Cabdullaahi Axmed Tarabi oo isla soconay asagoo hadda magaalada Virginia ku haray marka runtii wuxuu yiraahdaa salaan iga gaarsii dadka sportiga dhamaantood oo maxaa la yiraahdaa jooga magaalada Minnesota marka salaantaas aan asaga idinkaga wada marka kale waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo dadka akhyaartii iyo odayaashii iyo dadkii maxaa la yiraahdaa hawshan isu xilqaamay oo run ahaantii arrin aad iyo aad maxaa la yiraahdaa shucuur iyo farax aan la dareemi karin maxaa la yiraahdaa nagu abuuraysa aad baa waxa kale oo farax gelinaya maantay inaan dhex fadhiyo dadkii sportiga Soomaaliya magac iyo maamuuska weyn ku lahaa iyo dhinaca fanka lama iloobi karo Shariif Jeeg iyo maxaa la yiraahdaa dadka akhyaarta maamul hadday tahay ciyaartooy hadday tahay maxaa la yiraahdaa official hadday tahay nooc ay doontaba ha ahaato Ibrahim Suudani iyo Cabdi Cali iyo akhyaarta macallin qariidi iyo kulli dadka akhyaarta kulli wad meesha magac hadaan sheegay waxa laga yaabaa inaan qaar ka tago maxaa la yiraahdaa ma ahana marka intaas waxaan u xaradhabayaa odayaashaas waaweyn oo maxaa la yiraahdaa magaca sportiga Soomaaliyeed meel weyn ku lahaa runtii aad bay ii farax gelinaysaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed ciyaartooyda sportiga kala duwan iyo nooc ay doontaba ha ahaato runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay la joogiina iyo la fadhigiina caawa idin la joogo tan kale kolba waxay la tahay arrimaha Soomaaliya iyo nooc ay doontaba ha ahaato hadda waxa weey adduunku wuxuu wada noqday tuulo yar kulli waa la wada socdaa marka hadda waxa laga yaabaa xamartaan joogno inta adigu marmar nooga maxaa la yiraahdaa adigu halkaan jooga marmar maxaa la yiraahdaa nooga maqal dhowdihiin adinku nooga maxaa la yiraahdaa ogaansho dhowdihiin marka runtii gudoomiye Cabdi iyo Cabdi Cali iyo Cabdi Yuusuf iyo kule ayagu mar way tageen xamar way joogeen way soo arkeen iyo rag kale oo fara badanba qaabka u socdo iyo hawlaha sida ay yihiin ayaga la socdo waxay la tahay warbixino waafiya ayaga idin siiyay marka kaliya waxaan rabay hadii la share gareeyo wadaagno guddiga Olombikada iyo hawlihiisa wax yar oo kooban oo maxaa la yiraahdaa summary runtii saad wada ogsoontihiin maxaa la yiraahdaa guddiga Olombikada iyo xiriiradiisa iyo maxaa la yiraahdaa ururada uu ka kooban yahayba waxa ay la jaan qaadaan ama ay la shaqeynayaan ama waxa muuqaalkoodu la mid yahay hadba wadanka uu ka shaqeynayo wadanka ay joogaan sida uu yahay ma noqon karo asagu jasiirad gooniyo meel gooniyo ku taalo hawl gooniyo leh wuxuu u eg yahay oo markasta uu waxa la yiraahdaa uu shabaha meesha uu ka shaqeynayo iyo meesha uu joogo waa dareemi kartaan marka duruufaha iyo dhibaatada wadanka ka jira iyo sida ay yihiin marka run ahaantii waxaan xusid mudan markasta in la xuso u baahan dadkii Soomaaliyeed oo markii duruufihii iyo dhibaatada ayagoo jira uu istaagay sportiga inuusan baabi'in oo san dhiman wadanka ka dhiman maxaa la yiraahdaa ay nooleeyaan uu istaagay run ahaantii way dadaaleen dadaal fara badan ayay sameeyeen sportiguna wuxuu ahaa intii burburku uu jiray institutionka kaliya oo shaqeynaya oo maxaa la yiraahdaa markasta ama tartamada say doontaba ha ahaatee duruufaha ayagoo ka turjumaya inta badan hadda tartamada caalamiga ah oo la wada tagayay ama shirarka caalamiga la wada tagayay markasta maxaa la yiraahdaa xaadir ahaayoo joogay taas macnaheedu waxay tahay inaan lagu arag wadankaaga inuu baabaayo oo dhintay hal mar haddii maxaa la yiraahdaa lagaa waayo meesha dadku isugu imaanayo macnaheedu waxa waaye wax jira ma tihid oo wax baabaayo baa tahay laakiinse waxay la tahay wadanka xoogaa hadda saan la wada soconno inuu soo roonaanayo marka waxyaabo tallaabooyin la dhihi karo xoogaa horumar ayaa lagu tallaabsaday ayaa jira sidoo gudoomiye Cabdi Cali sheegayo kale waxa kamid ah oo aragteen garoomadii garoonkii Stadium Koona ama Banaadir Stadium hadda dhismo fiican ayaa lagu sameeyay tartan joogto ah ka dhaca sidoo sheegayo kale maxaa la yiraahdaa kooxaha ku tartamaya kooxaha waxay soo gataan ciyaartooy ajnabi ah
kuwa Yurub kaliya aragnaa ayagu kala gatay laakiin ciyaartoy kooxaha Soomaaliyeed oo ciyaartoy ajnabi ah dibadda ka keensanayo soo gadanayo maxaa la yiraahdaa waddanka ka ciyaarayo waxa islaanay waa horumar waxay ka turjumaysaa inuu isboortigu ka mid yahay waxyaabaha waddanka nabadeyntiisa inuu nabad noqdo qayb weyn ka gali kara inuu yahay markii la arko dad ajnabi oo ku soo dhiiranaya raba inay shaqo u soo doontaan Soomaaliya shaqo u soo doontaan garoonkii kale oo Lugino dad badan oo maxaa la yiraahdaa basket ciyaar ay ku ciyaari jireen hadda waxa loo bixiyay Wish Stadium waxa loogu magac daray in isboortiga Soomaaliya waqti weyn u soo maray oo hadana maxaa la yiraahdaa ku dhintay qaraxii 2012 tiyaatar ka dhacay ayaa hadda waxa la Wish Stadium isagana sidaas oo kale dhismo ayaa lagu sameeyay dayactir tartamo joogta ka socda oo handball haday tahay iyo basketball haday tahay hadda xataa habeenkii sidii waqtigii hore dadka Cabdidaahir iyo Sheekh ay garanayeen oo kale habeenkii hadda lagu ciyaaro oo habeenkii ay tartamo ka socdaan kolba marka hadalka uu lahaa gudoomiyuhu waa wax muhiim ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed gudaha joogta in ayaka maxaa la yiraahdaa la siiyo fursado fara badan waa wax muhiim ah loo baahan yahay haddana waxaa jira maxaa la yiraahdaa caqabado iyo dhibaatooyin fara badan oo haysta dhalinyarada haysta waddankii alxamdulillah hadda waa isu furfurmay laakiin hadda wixii ka horeeyay waxaa la yiraahdaa fulay xantiisa ma mooga waxyaabaha isboortiga Soomaaliya waxaan la ku xanta waa garanaynaa waxa la yiraahdaa wax kasta waxay ka dhacaan Muqdisho ay ka dhacaan ciyaartooyda marka la xalayo Muqdisho ay ka xulaan marka waxay la tahay ma ahan wax ula kac ama kas loo leeyahay laakiin hadba capacity iyo adigu waxaad haysataa resource-ga haysataa hadba intuu ku gaarsiiyo ayaad maxaa la yiraahdaa la sameyn karaa qorshahana way ku jirtaa sportiga inuu ballaarto oo waddanka oo dhan la wada gaarsiiyo dhalinyaro kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo kan waddanka jooga maan kan dibadda jooga Soomaaligaaba inuu fursadaas ka faa'iideysto oo uu leeyahay waddankii waxa way hadda burbur badan baa ka dhacay garoomadii oo dhan maalihi wax lagu tababaranayo ama lagu ciyaarayo ma jiraan waa burbursan yihiin Soomaaliya waxay ku fiican tahay sportiga aad ugu fiican tahay waa ciyaaraha fudud meel ka gaari karto waddanka dhan oo Soomaaliya ilaa iyo geeska gees hal kuma yaalo athletic track oo ilmuhu ku ordad lagu ordi karo lagu tababari karo kuma yaalo marka inta la soo saaray oo la hagaajinayo dhismaha iyo maxaa la yiraahdaa grassroots-ka Soomaaliya ka soo baxay markasta waxa loo baahan yahay in laga fursanaynin hadii la rabo national team in la sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa fursadaha haysta oo facility-yada haysta oo meeshan jooga in ayaga la raadiyo maxaa dhacay wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaalida oo joogta ama Minnesota joogta ama Sydney joogta Australia joogta waa Soomaali ayakuba maxaa la yiraahdaa markii la rabo in ay ciyaara maxaa la yiraahdaa tartan la sameeyo in ay ayaguna xoqo ay u heli karaan inay waddankooda matali karaan hadda ka hor waxa jiray 2013 ana Xamar Axmed joogna marka ciyaartoy waxa la diyaarinayay basketball oo ka qayb galay ciyaaraha Afrika marka idaacadaha Xamar markasta yimaadaan waxay yiraahdaan waxay ku leeyihiin adinka ciyaalkan diasporada maxaa meeshan ugu wadin kuwan waddanka jooga xaq u leh ayaga inta soo jooga ayaga in la siiyo marka waxaan ku yiri waa sax laakiin se kuwa dibadda jooga diaspora jooga ayaga laftigooda waa Soomaali meeshan waxa la qayminayo maaha macaawini wax la siinayo maaha qaran Soomaaliya la difaacayo qofkii maxaa la yiraahdaa asagu ka bixi kara oo maxaa la yiraahdaa awoodiisa leh ayaa inuu ka ciyaaro marka runtii markii ilmo badan oo Mareykanka iyo laga keenay iyo Canada iyo Australia ka yimaadeen laba wiil oo isdhigar labada wiil oo Soomaali basketball kuwa ugu fiican dhinaca haday tahay ciyaarta iyo academic halba ugu fiican ayaa la socda ayaa la keenay ayakana markii arkeen marka dhalinyaradii dibadda ka timid say u dhisan yihiin iyo say u ciyaarayaan iyo sidee yihiin waxay ku yiraahdaan macallimiintii wallahi hadaan ognahay labadan boos maana soo khasaarin lahayn ma soo khasaarin lahayn oo maxaa dhacay nimankan oo kala diiba la helayo maxaa la yiraahdaa in ayaka laga wada dhigay ahayd marka runtii waxa way waa run wax loo baahan yahay waaye ilmaha Soomaaliya jooga in fursad la siiyo tababar la siiyo macallimiin maxaa la yiraahdaa wanaagsan ay helaan qalab fiican ay helaan waa wax loo baahan yahay oo inaan ka wada shaqeyno dhamaanteen inay tahay marka run ahaantii talooyinka waan qaadanaynaa maxaa la yiraahdaa naloo soo jeediyo run ahaantii waxaan loo baahan yahay laakiin se markasta fursadda ugu muhiimsan waxa dadka waxa wax lagu tamaayo oo lagu dareynayo waxa way dadka Soomaaliyeed oo dibadda jooga gudoomiye Cabdi iyo kulli waa wada arkeen Soomaali qofka sidii lagu shaqeynayo iyo maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka lagu shaqeynayo qof maanta gurigiisa maruu ka soo baxay inuu qarax ku dhacayo inuu meel kale tagay aan ka warqabin inuu fikir badan wax badan fakaro lagama sugayo waxa la rabaa inay fikirkooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda iyo wax lagu soo dadka meelaha nabadda jooga weeye marka in maxaa la yiraahdaa laga qayb qaato waddanka dib u dhiskiisa guud ahaan annaga hadda sectorkan ka shaqeynayna waa sportska marka waxaan rabnaa dadka sportskuna runtii waxa way hadii ay fahmaan oo ummaddu ay fahamto
waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo waddanka horumarkiisa qayb weyn ka qaadan kara anaku ma fahamsanin oo hadda dowladda markaad ka soo qaadid wasiirkii boos loo waayo ayaa waxaa la geeyaa marka wasaaradda isboortiga dhalinyarada boos loo lagu qancinayo ayaa la geeyaa waxaa la yidhaahdaa qabiilada qaar baa waxay ku leeyihiin annaka maba ku jira portfoliyoodan annaka maba naloo keeni karo wasiirkaas isboortiga ma diga annaka nooma qalmo yaana laka dhaaf laakiinse anigu waxaan aaminsanahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga mas-uulka ka ah inuu yahay wasiirka ugu muhiimsan oo dowlad kasta ay yeelan karto maxaa dhacay dhalinyarada horumarintooda iyo dhalinyaradu waxa waaye xooggii ummad kasta ay leedahay waa dhalinyarada weeye isboortigu marka isaguna ma ahan waxa dadka loo arkaayo dad iscayrsanayo cayaarayo ma ahan laakiinse wax ka mug weyn inuu ku fadhiyo oo maxaa la yidhaahdaa uu ku muhiimsan inuu ku jiro maxaa dhacay isdhexgalkii bulshada wacyigelinta maxaa la yidhahdaa dhalinyarada hadda waddamadan aan joogno oo maxaa la yidhahdaa horumaray isboortiga waxa loo maalgeliyaa oo waxa weyn loo maxaa la yidhahdaa looga dhiga waxay tahay maalinka sabtiga iyo axadda waqtiga faraaqada la yahay haddii aan lagu mashquulin lahayn ummaddaas maxaa la yidhahdaa kumaanku kun oo cayaaraysa iyo boqolaalka kun oo fiirsanaysa haddaan lagu mashquulin lahayn waxaa laga yaabaa inay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo xun oo maxaa la yidhahdaa waddankaba ay burburin lahaayeen laakiin in loo sameeyo waxyaabo positive oo wanaagsano ay ku mashquulaan marka maanta waxa ugu muhiimsan waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay tahay oo wadankii maxaa la yiraahdaa waxyaabo colaado xun iyo waxaan loo baahnay inay dhex mareen waxa isu furi kara oo maxaa la yiraahdaa isdhexgalka ummadda waxa weyn ka qaadan kara inuu yahay sport wanaagsan oo horumarsan inuu yahay marka waxay la tahay waa muhiimad weyn iyo waajibna saaran inaan ka wada shaqeyno dadkan reer Minnesota oo maxaa la yiraahdaa wanaagga iyo jacaylka iyo muxubbada badan ay ka muuqata inay qaybtooda mugala weyn inay ka qaataan sidii horumarinta waddanka oo dhan qayb looga qaadan lahaa siiba dhinaca sportiga waxaan leeyahay sportiga hadduu hagaagsanaado oo meel fiican taga in uu noqon karo inuu horseedi karo waddankuna inuu gaaro maxaa la yiraahdaa horumar aad u wanaagsan runtii waxay la tahay intaas waa intaan qalbiga aan ka ilaahay meel waxaan ku soo talagalay oo maxaa la yiraahdaa ma aysan jirin haddii waxay la tahay inta badan waxay ku yimaadaan waxyaabo aad u baahan tihiin in la cadeeyo la waadixiyo waxay la tahay inay fasaxaan maxaa la yiraahdaa inay noo fasaxayaan dadka maxaa la yiraahdaa soo diyaar in dadku haddii u baahan yihiin su'aal ay u baahan yihiin in wax looga jawaabo inay haddii ilaahay yiraahdo ay taas ku timaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsantihiin mar kale soo dhawow Minnesota ku soo dhawow halmaan hadal kuma jira la yiri waxaa arrinta soo qaban qaabiyey sidoo hore u sheegtayba dad magac iyo maamuus ku leh ku lahaa haddana ku leh ciyaaraha Soomaaliyeed oo ka mid yihiin macalinka xulka qaranka kubadda koleyga Soomaaliya Sheekha walaalkay Axmed Daahir oo isaguna maartay macallin ilaa hadda macallinka ah barnaamijka dhalinyarada aniga aan maamulo wali daadii yareed soo ababinay xaqiiqda marka laga hadlo marka mar kale soo dhawow laakiin waa mahadsantiin mar kale waxaan idinka mahadcelinaynaa sidii sharafta lahayd aad uga soo qayb gasheen marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu